السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارد أفريقيا وحي مدة ku hoos noolad gumeystihii reer Yurub ka oo muwaadiniinta Afrika u diiday xuquuqdoodii siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha, taa oo aakhirkii keentay bilowgii qarnigii 20aad inay dhashaan ururo gobonimo doon ah. Ururadaas oo ay ka soo dhaxbaxeen hogaamiyaal halgamiyaal ah oo geesiin ah. Shakhsiyaadkaas ku soo caan baxay halganka iyo xurud u dirarka qaaradda Afrika waxaa ka mid ah shakhsiga aan doonay in aan wax ka soo qaato qayb ka mid ah taariikhdiisa. waxaan lagu magacaabaa Nelson Mandela, ka oo taariikhda qaaradda Afrika ka galay kaalin muuqata. waxaan lagu tiriyaa shakhsi u halgamay xuquuqda dadka midowga ah isla markaana la dagaalamay midkoorkii Koonfur Afrika. wuxuu ku dhashay Mandela gudaha dalkiisa Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Mafeso sanadkii 1918. waxaan lagu magacaabi jiray Rholihlahla Halali. iskuulka markuu ku biir way adkaatay in lagu dhawaaqo magaciisa, waxayna keentay in laga bedelo magaca loona bixiyo Nansal. asagoo jar 9 sano ayuu dhintay aabihii. kadib geeridii aabihii wuxuu la noolay madaxa tuulada deegaankooda, wuxuuna ku biiray iskuulka. inta uu dhiganayay iskuulka wuxuu ahaa arday firfircoon. kadib markii uu dhameystay waxbarashadiisii iskuulka wuxuu ku biiray jaamacadda Fort Hare. in yar kadib waa laga ceyriyay sababtoo ah wuxuu ka qayb qaatay banaanbax ay dhigayeen ardayda oo looga cabanayay midabta koorka. waxbarashadiisa sare wuxuu ku dhameystirtay nidaamka loo yaqaan intisaab ama correspondence. kadib markuu helay shahaadada waxay furteen asaga iyo saaxiibadii xafiis abukaate, ka oo noqday kii ugu horeeyay ee gudaha Koonfur Afrika ay furtaan dad midow ah. Mandela wuxuu guursaday 2 xaas, kuwa oo u dhalay isku darkooda 6 caruur. dhanka siyaasadda iyo halganka, Mandela wuxuu soo maray xaalado badan oo murugo leh, laakiin aakhirkii wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee midow ah ee Koonfur Afrika. sanadkii 1942 ayuu ka mid noqday xisbiga ANC, wuxuuna shaqadiisa siyaasadeed ka bilaabay ka hadalka midabta koorka. wuxuuna ku wareegi jiray gudaha dalkiisa, shacabkan wuxuu ku boorin jiray in ay ka hor imaadaan siyaasadda midabta koorka, taa oo ka careysiisay dowladdii majaraha ay u hayeen madaxdii caddaanka. aakhirkeena keentay in Mandela loo diro jeel. markay badatay isku dhaca dhex maraya asaga iyo madaxda caddaanka, Mandela wuxuu soo jeediyay hindisashiis oo ogolaanay in la taageero nabadda, wax kastana lagu dhameeyo wada hadal. hindisahaasi waxaa soo dhaweeyay dhammaan axsaabta iyo bulshada, laakiin arrintan waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah madaxdii caddaanka, kuwaas oo u adeegsaday booliska burinta heshiiska. Mandela saaray xayiraad socotay 5 sano. sanad kadib madaxdii caddaanka waxay ku eedeeyeen Mandela iyo saaxiibadii in ay galeen khiyaano qaran. maxkamadayntiisana waxay socotay 5 sano. waxaan lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay shuruuciyadda caalamiga ah, isla markaana uu doonay inuu waddanka xog ku qabsado. intii ay socotay maxkamadda waxaa waddanka ka dhacay xasuuqii la magacbaxay Sharpeville. aakhirkii Mandela maxkamaddii ay sii daysay, laakiin mar kale ayaa haddana la saaray xayiraad howshiisii halganka. sanadkii 1961 ayay ku dhawaaqeen madaxda caddaanka ee Koonfur Afrika in waddanka yahay jamhuuriyad ay iska leeyihiin dadka caddaanka ah. islaamkaasi markuu soo baxay kadib, Mandela wuxuu ugu baaqay dhammaan ururada caalamka inay xiriir ku jiraan xukuumadda. hadalkaasi madaxdii caddaanka aad ay uga carootay, falcelin xun way ka bixiyeen, taasoo Mandela ku kaliftay inuu isqariyo howshiisana u wato si qarsoon. shacabkana ku booriyay inay hubka qaataan, asagana waddanka isaga baxo. wuxuuna u safray Botswana, Tanzania, Masar, Algeria, Morocco, Ethiopia iyo Ingiriiska. wuxuu ku soo laabtay waddankiisa asagoo taageero buuxda ka soo helay caalamka. markuu soo galay waddankiisa 1962 hore ayaa laga qabtay. waxaa lagu eedeeyay kicin dadweyne iyo inuu waddanka kaga baxay waddo aan sharci ahayn, waxaana lagu xukumay 5 sano. isla sanadkiiba waxaa loo kordhiyay xukunkii, waxaana la gaarsiiyay xabsi daayin. asaga iyo saaxiibadii waxaa lagu xiray jasiiradda lagu magacaabo Robben. intii uu ku xirnaa xabsiga waxaa la isku dayay in lagu qanciyo inuu ka tanaasulo halganka, shacabkiisa dhinac uu ka raaco, laakiin Mandela wuu diiday dhammaan soo jeedintaas. xabsigu wuxuu ku jiray 27 sano. 1990 ayaa xabsi laga sii daayay bilaa shuruud, wuxuuna ku dhawaaqay in la joojiyo halganka hubeysan. isla markaana wada hadallo ayuu la galay madaxdii caddaanka, waxaana lagu heshiiyey in la dhameeyo cunsuriyadda, lana soo saaray dastuur cusub
oo dadka idil xuquuqdooda wada simaayo. Sanadkii 1994 Mandela wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Koonfur Afrika oo madow ah. Markay dhamaatay muddadiisa xukunka, wuxuu ka fariistay siyaasadda isla markaana isma uusan sharxin mar labaad. Cumrigiisa wuxuu ku dhameystay arrimaha bini'aadanimada. Mandela wuxuu ahaa nin taageersan qadiyadda reer Falastiin iyo hogaamiye Yasser Arafat, weliba asaga oo la socda Yuhuudda saameynta ay ku leedahay waddankiisa. Sidoo kale ma jeclana madaxda Israa'iil iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush. Mandela caalamka wuxuu ka helay qadarin weyn, waxaana la siiyay abaalmarino tiro badan oo ugu horeyso abaalmarinta loo yaqaan Peace Prize, waxaana taalo loogu dhisay fagaaraha baarlamaanka Ingiriiska. Sanadkii 2013 Mandela waxaa ku dhacay xanuun dhanka kelyaha ah, aakhirkiina sababay inuu u dhinto bishii December sanadkii 2013. da'diisu waxay gaaraysay 95 sano, waxaana lagu aasay deegaankii asal ahaan uu ka soo jeeday, waxaana soo xaadir aaskiisii 4500 oo ruux oo ay ka mid yihiin madaxdii caalamka iyo rag miisaan ku leh dunida. Fadlan kanaalka subscribe sar.